السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام الدمان ومديدة مال كستا جوجتان أيهوب دمان إلا لدنتين عافماد قبطان نمعي سنتين مال كستا حلي كستا يساعد كستا يدين الله سبحانه وتعالى يدكو عفتي welcome back ويناقي يسكسو نقنا إيا another فيديو الحمد لله هدا يقو عصبتا welcome back هدا ولا الله يقو هرتا welcome back سيدوكال دمانتي ومهات سنتين بليز سبسكرايب كسار لايك تسار شير كري أنكم بلالك تموسي فيديو كستا عصوق لي عاد ولا صعدت فيديوغان إن شاء الله بإذن الله الكريم وحينو كاقا hadlaynaa gooliska iyo sida loo samaysto iyo inta ay u kala baxaan goolisku marka waxay u kala baxaan saddex mid waa gool gaaban ama short ah inagu gaabni baynu oranayna af Soomaali waa gool ilaa hal sano gudaheed ama ilaa weliba oran karna xataa 2 sano u gaari kara aad rabtid inaad ku gaadhid oo waa gool gaaban oo aanad badan lacag aad u badan aadan u baahnayn kaba soo qaado kale waxa laga yaabaa inaad tiraahdo December oo kale inaan wadankii aadan rabaa December inaan Florida aadan rabaa inaan London aadan rabaa so that you need 1 year lacag abaad rabtaa inaad save garaysid inaan Nairobi aadan rabaa dad Soomaaliya joogtid inaan xamar u guuraan rabaa whatever ay noqoto shortkaas marka uu gaaban yahay hal sano gudaheed ayaa rabtaa inaad ku gaadhid goolka oo lacagta ama ku ururisid ama iskuul ku dhamaysid ama wax ku qabsatid waa short uu gaaban yahay waa goolkii gaabnaa goolka kale oo kaas ku xiga marka kaas oo kale waa wax aad ogtahay inaan waqti dheer kaaga baahnayn goolka gaaban ma aha waqti aad u dheer ma haysatid lacag badan oo kale waad ogtahay inaanad yar gudaheed ku samayn karin waad ogtahay jaamacad inaan hal sano gudaheed ku dhamayn karin waad ogtahay cunugaaga hadda dhashay inaanu waad ogtahay shortku waa wax gaaban markaa waxay noqon kartaa lacag emergency fund aad rabtid inaad save garaysid waxay noqon kartaa cunugaaga tuitionkiisa aad rabtid inaad sanadka $2,000 u save garaysid waxa laga yaabaa vacation gaaban aad rabtid inaad goolkaas marka waa gool gaaban waqti badan ma baahna laakiin balaanku isku mid saddexdaba ka labaad waxa weeye goolka dhexdhexaadka marka waa ilaa sanad intii ka badan ilaa 5 sano inta u dhaxaysa xataa sometimes ilaa 10 years uu noqon karaya waxay ku xiran tahay goolka waxa aad rabtid goolkaasi badana marka waa goolka dhexdhexaadka uu dheer yahay waqti badan ayaadna u baahan tahay waxaa ka mid ah goolkaas oo kale kaba soo qaad cunug caruur baan leeyahay ilmahayga yar oo kale maanta oo 2 jirka oo kale waan ogahay insha Allah bidmilaahi karin 5 sano kadib inuu gaadhayo ama 3 sano kadib inuu gaadhayo iskuul marka waxaan rabaa kale kaba soo qaadana Islamic school ku daro I know that tuitionka iskuulkaasi waa 5 sano $5,000 baa laga rabaa sanad walba waxaan ururinayaa maybe sanadka ugu horeeya ama 2 sano ugu horeysa lacagtii caruurta iskuulkooda waxaa laga yaabaa inaan guri rabno inaan gadano 5 sano kadib haddii ilaah weyna raali ka noqdo 5 sanadood markaa lacagtii ayaan gaadhay 5 sano oo kale lacag kaliya xataa khasab maaha inaan guri dhistaan rabaa inaan iskuul ku noqdo wax bartaan rabaa waan ogahay 5 years kadib markuu maxamed yare gaadho inaan iskuul ku noqdaan rabaa iskuulkaasi intee bay ku qaadanaya marka wixii saasad u balaan garanaysa marka shoorku waa wax kasta lacag kaliya ma noqon karto waxay noqon kartaa gool aad leedahay laakiin aan gool aad rabtid waad ogtahay iskuulkii wuxuu ku qaadanaya waqti marka waxaad balaan garanaysaa xilliga aad u baahanto haddaad jaamacad aadid qurbeen aad joogtid oo kale 4-5 years baad u baahantahay inaad aadid haddaad graduate school aadid kasii daran sidoo kale ilmahaaga inaad guri haddaad rabtid gaadid oo kale $20,000 baa laga rabaa 20,000 ayaa 5 sano u qaybinaysaa inaan Nairobi guuraan rabaa cunugayga yar 10 sano markuu gaaro waxaan rabaa inaan wadanka kaba guuro wadankayga u guuro soo waan ogahay cunugayga 3 jirka amaanta intuu 10 ka gaadhay haddii Allah raali ka noqdo 7 sano oo soo socda mowqifkaygu wuxuu yahay inaan urursado lacagtii aan wadanka kaga bixi lahaa ama inaan 7 sanadood iskuul ku dhameeyo wax ku barto guri gato waxaan sameeyo hadhow si aan wadankii markaan tago anigoo wax haysta aan tago marka goolkaasina waa gool ilaa sanad wixii ka badan ilaa 5 sano ilaa 10 sano uu gaari karo waa goolka dhexdhexaadka badana laakiin usually wuxuu dhaxeeyaa ilaa 1 ilaa 5 ilaa 7 uu gaari kara xataa even xataa 10 waa still medium way 10 wixii ka badan waa long term goal waa goolkii dheeraa kaasoo kale waxa weeyaan waa retirement dadku markay qurbahan oo kale dadku markay waaweynaadaan 65 ay gaaraan shaqada way ka fadhiistaan marka dadkan waxay sii balaan gareeyaan lacagtii bay sii save gareeyaan sidoo kale ilmahaaga maanta dhashay doctor 10 sano kadib iyo 18 sano kadib jaamacad buu aaday haddii alla raali noqdo isukii bahalkayo marka long termkaas waxa weeyaan maxamed yare 18 sano markuu gaaro lacagtii jaamacadiisa
ma ogin inaynu gaadhayna laakiin waynu iska balangaraynaynaa haddaynu dhimanona waaba dhimanaynaa haddaynu noolahayn atleast waynu gaadhna inagu sii balangaraynay markaa 3 gool waa isku mid laakiin waqtigii ayaa kala dheer markaa sababaha lagaaga baahan yahay gool kasta oo mid kasta ama ha dheeraado ama ha gaabnaado ay tahay waxa weeyaan marka ugu horeyso waa inaad isweydiisid why baan u rabaa inaan goolkan sameeyo maxay tahay sababta igu khasbaysa ma samayn karayaa how long bay igu qaadanaysaa intee waqti leeg bay igu qaadanaysaa goolkaasi ma iga hor joogsanayaa waxyaabaha nolosheedaan ku jiro for example oo kale guribaad bixisaa kiraad bixisaa vacation ma iga hor istaagayaa maya baa tiri okay maxaan sameeyaa si aan ku gaadho goolka maxaan give up ku sameeyaa ma shaqo kalaan samaynayaa ma spendingaygaan yaraynayaa ma lacagtaan badinayaa ma meelo badan baa wax ka googoynaya waa inaad su-aalahaas oo dhan isweydiisid ta kale waxa weeye waa inaad haddii aadan waqti lahayn kugu xisaabsan aad og tahayna waa inaad waqti yeeltid sababtoo ah runtii waxa markii aadan qoranin oo aadan lahayn waqti go-an horumar kuma gaadhid haddaad ogtahay aad leedahay okay 2023ga December waa inaan waxaa gaadho 25ka haddii ilaa 2026ka 25 waqti go-an baad qabsatay dadaalkaaga wuu baxayaa wixiina guul baad ka gaadhsa laakiin haddaad leedahay inaan Nairobi ka guuraan rabnaa laakiin aadan time aanad qabsanin ma ku soconayso soo gool kasta aad leedahay marka ugu horeyso waa inaad isweydiisid sababtu maxay tahay u samaynaysaa sababtii marka waxaan u gaadhayaa inaan caruurta rabaa inaan guri gataan rabaa inaan vacation aadaan soo you have a reason aad wixii u samaysid waxaana walaala inuu ogaanaa anigaygan baa xataa tusaale u qaatay markii waxaan bilaabay waxaan ogaaday allah ilaa waxaas wax hormariyo ilaa waxaan waxyaabihii aan rabay aan u samayn waayay sababtoo ama aan haysan sabab waxa waan rabaa haddaad hadda tiraahdo iskuul baan rabaa inaan aado waybaad iskuulka rabtaa inaad u aadid ila iska aad maaho faadmagiyo cali kudad ila wax may joogi karaysa laakiin waxaad wuxuu aadaysaa wuxuu samaynaysaa sabab oo inaan shaqo fiican helaan rabaa oo inaan wadanka ka guuraan rabaa oo caruurtayda waxaan u guurayaa vacation ahaan igama in ilmahaygu diintay qur-aanka ii soo bartaan oo wadanka ka tago oo waxaan rabaa inaan vacation aado oo waxaan rabaa inaan wadankii aad hooyaday soo arko sabab baa kugu balkeynaysa laakiin faaduma liibaan iyo iskama socotid umatii haddii aadan wixii gool lahayn oo aadan balaan lahayn waxaad noqonaysaa wadaha la qiimareena iska socde marka wixii sabab waa inaad yeelatid qofka bini-aadmiga sabab markuu haysto dadaalkiisaa bata maanta haddaan rabo inaan gurigayga ka guuro xafish badan iskuma badinayo haddaan ogahay inaanan gurigan deganaanayn aanan wana inaan alaabo badan gato because waan ogahay gurigan tembrary baan ku ahay adigana waxaad iska dhaandhicisa inaad tembrary tahay haddaad og tahay in aad gool leedahay waxaadan u baahnayn ma gadanaysid because waxaad leedahay okay marka ugu horeysa waa inaan gaari baan u baahna waa inaan gaari gato gaariga gabadh ba waxay iga sheekeynaysay waxay tiri odaygayga markaan emergency fankayga samaysanaynay ba waxay tiri ba wiil yaraan dhalay wuxuu yiri aabba waxaa salaysa aniga intaan hadin buu odayga qaylan bilaabay ma la samaynayo lacagta emergency fanka weli lama buuxin markaasaynu waxay qofka waxa ku haya goolka uu gaadhay marka goolka markaad ogtahay inaad samaynaysid sabab markaad haysatid waxba ku bushkareeya laakiin hadday tahay sheekadu iska soco especially inaga dhaqankeena Soomaaliyeed waxaynu ina haysta iska soco gool ma gaadhayno qof kastoo Soomaaliyan arko uu cabanaya laakiin ma la samaynayo goals ma la samaynayo plan ma la samaynayo nolosha inaad wax ka bedeshin walaalayaal haddayna nolosheena inaan waxba ka bedelin sanad walba halkaas aynu taagnaan haddaadan gool samaysan meel ma gaadhaysid haddaadan dream lahayn oo aad rabtid inaad meel gaadhid waxba kale ma qabsanaysa haddii kale halkii baad fadhiisa sanadkii hore meeshii aad fadhiday miyaad maanta fadhidaa sababta waa gool la-aan waa dream la-aan miyaad rabtaa sanad walba inuu sanadkii intuu dhasho sidii kuugu dhammaado miyaanad rabin sanadba sanad ka dambeeya inaad kasii fiicnaatid inaad horumar ka gaadhid inaad dhaqaalo yeelatid inaad wax baratid inaad meel iska soo saartid inaad ciyaalkaaga u noqotid role model isaa tirada hey ilmahaaguna ogow inay kugu dayanayaan ilmahaaga dadkaaga inay kugu dayanayaan marka adiga wax qabsatid marka insha allah bidnillaahi karin goolka ugu sababta aad u samaynaysid ma samayn karaa goormaan u baahanay waxaasoo dhan isweydiiye insha allah bidnillaahi karin aniga sanad walba marka uu dhasho
waxaan samaystaa goolis aan raba inaan gaadho waad ogteen insha allah bishan aakhirkeeda ayaan idinla qaybsanayo gooliskii ama bisha January insha allah midun haddii ilaahay raalli ka noqdo gooliskii aan sanadkan qabsaday inaan wada gaadhay inaanan gaadhin insha allah bidmillaahi karin sanad walba gool baan saa u samaystaa bil walba gool baan saa u samaystaa week walba goolis baan leeyahay okay today because qofka haddaadan balaan lahayn everyday waxaan qabanaya usually waan ogahay ma aha maalin walba inaan balaan leeyahay laakiin waxay siisaa structure markaan ogahay oo bishatan waxaan u baahanahay wixiina qoro aad u baahnayd marka aan qorto yarada oo bishatan waxaan u baahanahay distaad inaan gaadho marka xataa goolashaydu aniga way kala saarleen mid waa financial mid waa personal mid waa financial mid waa professional mid waa caafimaad healthy nolosha familiga marka we have to inaynu haysano goals dad ina bushkareeya qofku markuu uu rabo inuu wax gaadho dadaal baa gala happiness baa ku gasha waxaa ku gala inaad dhiirigelin laakiin marka aad meesha fadhida niyadda kaa dilmaysa marka aynu is dhiirigelino insha allah bidmillaahi karin aynu goals yeelano qof goolkuna ma aha muhiim inuu noqdo wax weyn aad qabsatid one step at a time qaad talaabo yar maalinba in yar wax yar samee sumul haddaad meel ku ridid tomorrow sumul kale ku ridid labay noqdeen haddaad maanta talaabo yar qaadid iskuul yar aadid tomorrow waad kasii badan haddaad shaqo yar aadaad maanta saacad ku bilowday berina 2 saacadood bay noqon haddaad guriga maanta kaba soo qaad gurigaaga oo kale aroor walba sariirtaada markaad kalin karaysa caruurta sariirahooda aad kalin karaysa iyaga tiraada kalin kareen hadhow galabtii markaad soo noqotay ama caruurtii mada guriga waa nadiif laakiin ka waran haddaadan samaynin weygii guriga suma buuxsameeyo marka in yar haddaynu samayno nolosheeni way inoo fudfududaan hal mar waxa laguma dhaqaaqi karayo marka insha allah bidmillaahi karin let's aynu gool yeelano haddii aad su-aal qabtaan always am happy inaan ka ansaro commentiga igu soo qora what's your goalskaaga let's have goal inaga dhan aynu isku dhiirigelino aynu isku bushkareyno iisoo sheeg haddaad gool leedahay I will be the one oo ku bushkareeya oo ku warda ma samaysay xaggaad marinaysa anigana sidoo kale because waxaynu u baahanahay people dad noloshaana ku jiro oo ina yara bushkareeya ama aynu isku yara daydayano marka insha allah bidmillaahi karin antii aynu video kale ku kulmayno khayr ayaa idin rajeynaya ilaahay subxaanahu wa tacaala meelaynu joognaba haynagu xifdiyo ilaahay howlaha adduunka haynoo sahlo aynu noqono dad meel iska soo saara si aynu bulshadeena wax u tarno qalbigayga aad ayaan uga naxay waxyaabahan ka socdo Soomaaliya iyo wadankeena dadkeena way dhibaataysan yihiin caruuraheeni dhalinyaradii haddaynu inagu marka waxaysano dadkeeni kalena waxbaynu taraynaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta irsaaqada ha u baalkeeyo haddii aynan waxba haysan cidna waxma tari karno haddii laakiin aad waxhaysatid qof kalaad wax taraysaa hadal qof kasta until next time khayr ayaa idin rajeynaya aynu isu soo ducayno khayr ayaa idin rajeyn thank you like tasaar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu